السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada dhammaan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda fasalka 12aad ee dugsiga sare waxaan galaynaa insha Allah casharkeennii labaad ee duubista maadada xisaabta gaar ahaan fasalka dugsiga sare gaar ahaan fasalka 12aad waxaan maanta qaadanaynaa casharkeennii labaad waxaan ku baranaynaa sum and difference identities for sine and tangent waxaan ku baranaynaa sida la isugu daro laba xagal oo sine ah iyo laba xagal oo tan ah iyo sidoo kale sida loo kala jaro laba xagal oo sine ah iyo laba xagal oo tan ah. Tan casharkeena ugu gudagalin casharkii hore waxaan ku soo baranay qaabka loo kala jaro iyo la isugu daro xaglaha cos ayaan soo baranay. Waxaan hore u soo baranay laba xaglood oo cos ah marka la isku darayo tusaale ahaan cos A plus B in loo furfuri jiray cos A ku dhacsan cos B oo laga jaray sin A ku dhacsan sin B. cos A laga jaray cos B na laga jarayna waxa lagu heli jiray ayadana cos A oo ku dhacsan cos B lagu daray sin A oo ku dhacsan sin B. sidoo kale waxa ku soo apply gareynay tusaalooyin aan ku soo apply gareynay maanta insha Allah casharkeena waxaan ku qaadanaynaa sida la isugu daro laba xagal oo sine ah iyo laba xagal oo tangent ah iyo sida loo kala jaro. Marka ugu horeyso waxaan baranaynaa marka laba xagal oo sine ah qaabkee la isugu daraa. tusaale ahaan waxaan haysanaa sin A oo lagu daray B waxay isku furfuri doontaa qaab noocan ah oo waxay noqonaysaa sin A oo ku dhacsan cos B plus cos A oo ku dhacsan sin B. qaabka ayay isku furfuri doontaa sin A plus B. sintu markii labadeeda xaglood ay isku darsan tahay waxay isku furfuri doontaa sin A oo ku dhacsan cos B lagu daray cos A oo ku dhacsan sin B. haddii laba xagal oo sine ah aan rabno inaan kala jarno ayadana waxay isku furfuri doontaa qaabkan oo waxa halkan ku haysanaa sin A oo laga jaray B waxay isku furfuraysaa sin A oo ku dhacsan cos B oo laga jaray cos A oo ku dhacsan sin B. qaabka ayay iyana isku furfuri doontaa. waxaan kaloo baranaynaa sida la isugu daro ama loo kala jaro laba xagal oo tan ah. markaan rabno inaan laba xagal oo tan isku darno waxaan leenahay tan A oo lagu daray B waxay isku furfuri doontaa sida tan oo ah tan A lagu daray tan B oo loo qaybiyey 1 minus tan A oo ku dhacsan tan B. qaabka ayay ayadana isku furfuri doontaa. xaglaha markay tan yihiin oo waliba sum ay yihiin oo isku daris ay yihiin waxay isku furfuri doontaa tan A lagu daray tan B loo qaybiyey 1 minus tan A oo ku dhacsan tan B. haddii xagasha ama labada xaglood ee tan ay kala jaran yihiinna waxaa loo isticmaali doonaa qaacidadan oo tan A minus B waxay isku furfuri doontaa sidan oo ah tan A oo laga jaray tan B oo loo qaybiyey 1 plus tan A oo ku dhacsan tan B. qaabka ayay iyana isku furfuri doontaa. marka casharkeena waxa aan ku baran doonaa waxay tahay inta oo kaliya waxaan ku baranaynaa mar laba xagal oo sine ah oo isku darsan iyo sidoo kale laba xagal oo sine ah oo kala go'san. waxaan kaloo baran doonaa laba xagal oo tan ah qaabka la isugu daro iyo laba xagal oo tan ah qaabka loo kala jaro. waxaan isticmaali doonaa qaacidooyinkan sin A plus B waxaan ku furfuri doonaa sin A cos B plus cos A sin B. sin A minus B waxaan u furfuri doonaa sin A cos B minus cos A sin B. tan A plus B waxaan u furfuri doonaa tan A lagu daray tan B loo qaybiyey 1 minus tan A oo ku dhacsan tan B. tan A minus B waxaan u furfuri doonaa tan A laga jaray tan B oo loo qaybiyey 1 plus tan A oo ku dhacsan tan B ayaan u furfuri doonaa. marka ka waxay ahaan doontaa qaabka qaacidooyinka ee u shaqeyn doonaan insha Allah. waxaan halkan ka geli doonaa example ku salaysan insha Allah. waxaan galaynaa insha Allah example-ka koowaad ee casharka labaad. casharkan oo ah sum and difference identities for cosine example-kiisa koowaad ayaan gali doonaa. waxa uuna ku yaalaa page-ka 9aad ee buuggaaga manhajkaaga page-kiisa 9aad uu ku yaalaa example-ka. waxaa lagu yiri find waxaa soo heshaa the exact value qiimaha saxda ah of each expressions ee yeelan doonaan mid kasta oo ka mid ah qoraal xisaabeedyadan soo socda. waa saddex xaraf waa xarafka A xarafka B iyo C. A waxaan ku haysanaa sin 75 degree B na waxaan haysanaa tan 7 pi over 2 alif
cna waxaan ku haysanaa sin 40 degree cos 160 degree laga jaray cos 40 degree sin 160 degree marka mid mid ayaan ugu shaqayn doonaa waxaan leenahay solution marka ugu horeyso waxaan leenahay solution ayaan leenahay marka ugu horeyso waxaan leenahay solution furfuris waxaan soo qaadanaynaa xarafka a baan soo qaadanaynaa a waxaana la siiyey sin 75 degree waxaan rabnaa qiimaheeda saxda ah inaan soo saarno sidaan ognahay xaglihii aan soo qaadanay oo unit cycle-ka kuma jirto 75 degree oo waxay ahaayeen 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree 120 degree 135 degree wamaa ilaa dalik maadaama aysan ku jirin 75 degree waxaan raadinaynaa special angleski aan hore usoo baranay laba xaglood ka mid ah isku darkooda ama kala goyntooda oo ina siinaysa 75 degree marka waxaa ina siin kara 75 degree 45 degree oo lagu daray 30 degree ama 30 degree oo lagu daray 45 degree ayaa na siin karta therefore waxaan leenahay marka sin 75 degree waxaan u qori karnaa sin 45 degree oo lagu daray 30 degree ayaan u qori karnaa haddaan dhahno sin 75 degree iyo haddaan dhahno sin 45 degree oo lagu daray 30 degree waa isku mid inay isku mid yihiin waxa ku sheegaysa calaamadda kaliya waxay ku kala duwan yihiin qaab qoraalka kanna waa single function kanna wuxuu ka kooban yahay laba markaasi laba isku darsan laba xagal oo isku darsan so waxaan leenahay marka waxay u eg tahay sin a plus b oo a waxa u taagan 45 degree b na waxa kugu taagan 30 degree waa furfurayna kaliya waxaan leenahay marka sin a plus b qaabka loo furfuri jiray maxay ahayd waxaan leenahay sin a plus b waxa loo furfuri jiray sin a oo ku dhacsan cos b oo lagu daray cos a oo ku dhacsan sin b qaabka ayaa loo furfuri jiray booska a waxa igu taagan 45 degree ayaa igu taagan ku bedel booska b na waxa ku taagan 30 degree noogu bedel kadib waxaan leenahay sin ii soo qaad booskii a waxa ku bedelataa 45 degree cos ii soo qaad booska b waxa igu bedeshaa 30 degree lagu daray waxaan soo qaadanaa haddana cos ii soo qaad booska a waxa igu bedeshaa 45 degree kadib haddana waxaan soo qaadanaynaa sin booska a waxaan ku bedeli doonaa 30 degree waxaan u ekaysiinaa qaacidadii kadib waan ku furfurnay waxaan leenahay marka sin inoo soo qaad waxaan isku daraynaa 45 degree lagu daray 30 degree waxay noqonaysaa 75 degree kadib waxaa calculatorkaaga la aadaa sin 45 degree ama casharkii hore introduction-ka ayaan ku soo baranay casharada kii ka horeeyay ah soo daawo sin 45 degree qiimaheedu wuxuu ahaa radical 2 oo ku dhacsan cos 30 degree qiimaheedu wuxuu ahaa iyana radical 3 over 2 oo lagu daray cos 45 degree qiimaheedu wuxuu ahaa radical 2 over 2 oo ku dhacsan sin 30 qiimaheedu wuxuu ahaa half haddaba markaa meeshaas joogno waxaan leenahay sin 75 degree waxay la mid tahay radical 2 times radical 3 waxay noqonaysaa radical 6 oo loo qeybiyey 2 times 2 na waa 4 lagu daray radical 2 times 1 waa radical 2 2 times 2 na waa 4 waxaan leenahay ugu dambeyn sin 75 degree waxay la qiimo tahay maadaama fractionkan isku darsan hooseyaashooda isku mid ay yihiin mid ka mid ah ayaan qaadanaynaa kadib sareeyaasha waxaan leenahay iskuma darsami karaan sidooda ku muuji ugu dambeyn waxaan leenahay marka sin 75 degree waxay la qiimo tahay radical 6 plus radical 2 divided by 4